بسم الله السلام عليكم maanta waxaan eegi doonaa qaabkaan software ama program uga saari lahayn computerkeena hadaba dadka qaar baa waxay sameeyaan markay computerka ka saarayaan program ama application intay right click siiyaan delete yiraahdo kadib uu delete gareysmay faylkii resultka binka tan ka eegnana resultka binka ayuu na galay oo halka jooga resultka binka hadda tan si delete gareyno on delete nidhaahno wali faylkaasi nagama bixin oo haddaan team halkan ku qorno waa halka wali noo jooga barnaamijkii halka taagan marka qaabkaan uga saarayno eega waxaan dhigaraynay software-kii maahin waa shortcut-kii ee programka soo meel kale yaala ayuu shortcut-kuna halkan si fudud qaab yar fudud ku tagi kartaa maahin application hadaba si aad uga saartid halkan waxaad ku qoraysaa control button okay bataanaysaa enter bataanaysaa kadib waxa ku soo baxaya shaashadan baa ku soo baxaysa shaashadan ka duwan talaga yaaba hadii kuwan category-gan qayb kale ku taagan yahay ku soo baxay laakiin category ku deyso kadib programska uninstall ayay ka hooseeyaan taabanayna waa kuwan software-rada inoogu jira dhamaantood halkan ayaanu ka arki karnaa waa kan software-kii aan rabnay inaan saarno kadib click baan siinaynaa select-ga ama kaabaan dooraynaa uninstall baan taabanaynaa uninstall inaga baxay barnaamijkaasi okay waa ka barnaamijkaasi saas ayuu inaga baxay waa kuwa barnaamijyada inoogu duubanaa halkan ayay inoogu jiraan kolba midkaan doono ayaanu iska saari karnaa oo ka kale ayaan iska saaraynaa isna uninstall okay waxaan weydiinayaa inaan ma hubtaa oo weydiinaya inaad barnaamijka saartid okay ka marka uu weydiinaya halka yar oo soo baxay marka ayuu weydiinaya inaad hubtid oo ka saartid barnaamijkan dhamaantiis ka saartid isaga faylashii la socday dhamaantiiba aad wada saartid ayuu weydiinaya okay marka uninstall inuu ka saaro ayuu bilaabayaa barnaamijkii waa ka baxay successfully buu inoo soo qoray barnaamijkaasna sidaas ayuu kaga baxay computerka sida ayaana barnaamijyada looga saaraa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.